الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdisamed Xuseen Diire odayaasha dhadhaab ka tirsan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka hore xasalaha ummadda muslimiinta meel kasta joogaan dal iyo dibad gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Salaan kadib magacaygu waa Ali Africa. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdisamed Xuseen Diire odayaasha dhadhaab ka tirsan maamul ahaan odayaasha maamulka dhadhaab. Aniga waxay ila tahay ninkaas hadii si sharci ah lagu keenay oo baarlamaanka la mariyay wuu istaahilaa sababtoo ah ninkan sirta dawladda kama shaqeynayo waa management u jooga moogay uma joogo inuu dhaxgalo sirta Soomaaliya iyo waxay ku shaqeysay lacagta intay ka imaatay ma waxa ninkan waa nin dadka wax barahayo oo waxbarasho dawladii hore uu ka soo shaqeysay loo sheegay oo wax ka soo barahayo dadka uu dawladaha soo kiciyay Soomaaliya maanta way u baahan tahay waa ilmo yar oo socod barad in la qaado oo la kiciyo oo dadka bangiyada ka shaqeeya ma loo ogol in awareness iyo refreshment la siiyo oo waxbarashadooda kor loo soo qaado way u baahan yihiin maxaa jira adduunka maanta nidaamyada badan waa model technology baa jirto ninkan inuu shaqooyinkii asaga dawladii hore uu ku soo kiciyo inuu maanta Soomaaliya la imaado la soo magacaabo uu kiciyo waa nidaam meesha ku jiro ma aha wax dhibaato keenayo oo Soomaaliya dib ku keenayo ama arrimaheeda gudaha dhaxgalaya ma aha marka waxay ila tahay aniga in aanan qayli wax kasta laga doonin maxaa jira farmaajo iyo khayra wadanka horumar bay wadaan maalinba lug bay u fidinayaan lugta fidiyaan in loo laabo ma aha in lagu taageero oo wadanka horumarkiisa la doono maxaa jira waxa loo doortay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiirada loo dhisay ninba inuu wadanka meel uu ka fidiyo oo wax ka soo qabto wax ku soo kordhiyo ayaa loogu talagalay laakiin ma aha in la hor istaago muqdishona waxa dhibka iyo wado iyo waxa way dadkii dawladii hore soo maray madaxdii soo maray ee wadanka soo maamuli jiray markii ay ka dageen nin kasta oo Soomaali dhibaatada jirto xitaa madaxweyne soo maray hadii laga qaado nin kale ka qaado ama wasiiraha wasiirnimada laga qaado ama meel kale ka tagay oo shaqada ka tagay inuu dhibaato keeno oo wadanka uu hadda hoos u dhigo dhibaato weyn bay ku tahay waxaan waxa ka dambeeyana waan ognahay dadka ka dambeeya waa dadka Soomaaliya hadda ay ka dagi lahayd wili khaasatan Muqdisho Soomaaliya waxaan u dhihin Muqdisho dadka ay ka dagi lahayd ee dhibaatada ku haya ee walaaqahayo ee maalinba wax meel ka dhigahay dhibaato u keenayo way sidaa darteed waxaan anaga haddaanahay dadka degan gobolka waqooyi bari waxaan taageersanahay Soomaaliya inay wax noqoto ayaan ku faraxsanahay moogay inay hoos u socoto uma faraxsanin waxaana ku taageereynaa dadkaas maanta Soomaaliya hor u wada in la garab istaago la riixo lala qabto meeshii ay ka laabato loo toosiyo moogay in la garab istaago laga hor imaado oo dhibaato loo keeno oo dadkii shacabka ama masaakiinta ah dhibaato loo keeno maalinba meel laga qarxiyo maalin meel laga dhibo dhibaato weyn bay nagu tahay sidaa darteed waxaan leeyahay waan taageersanaa anaga waxaan leenahay wadanka sidii wax looga qaban lahaa la hormariyo hal isku raaco ergeyga qaramada midoobeed waxa loo soo magacaabay markii hore ma ahayn inuu Soomaaliya gudaheeda dhex istaago oo hoos u galo oo walaaqo ma ahayn inuu Soomaaliya isu keeno oo walaaleeyo ma ahayn asaga ergeyga qaramadooda wuxuu ku khaldanaa arrinta Baydhabo inuu ka shaaciyo adduunka arrinta Baydhabo waxay u taallaa Muqdisho u taallaa madaxweynaha jooga ra'iisul wasaare jooga wasiiradii wadanka xukuumadda jooga ayaga sidee wadanka ku nidaamaha uu ku degi lahaa ee ku talaabo qaaday inuu ka hor imaado ma ahayn asaga waxay ahayd arrintiisa inuu garab ugu noqdo wixii Soomaaliya lagu soo hagaajin kara qaramada midoobeed uma soo magacaabay inuu Soomaaliya dhibaato ku hayo waxay u soo magacaabay sidii inuu ka taakuleeyo dawladda sidee hore loogu qaadi lahaa iyo ka tala bixiyo marka taa khalad buu ku ahaa hadii la eriyana waa suurtagal xaq bay u leedahay Soomaaliya awood bay inuu leeyihiin oo maxaa jira qaramada midoobeed bay ka tirsan yihiin sharcigaana oo ogol sidii laga sheegay maalmihii hore ay doodaha ka socdeen marka midan ninka la keenayna waa midda tii hore aan ka eri maxaa jira ninkan horumarka buu wadaa ma aha sidii kii qaramada midoobeed Soomaaliya isku dilahay kana horumar buu wadaa horumarkiisa hal arko marka uu wadanka hoos u galo oo dhibaato kale uu sameeyana waa la eri aniga dadka waxay tahay sharci wadan kastaba sharci buu leeyahay iyo nidaam la raaco waxa khalad ah sharci niman aqoon inuu sharcigi inuu soo ogaado in ay ficnaan lahayd inuu ka hor imaado dawladdan waxay ku dhaqaysay wadanka ku wada sharci darama waa sharci waa constitutionka dawladda u degan waa wixii lagu dhaqi lahaa oo lagu heshiiyay waa inkastoo uu yahay ahad qarameedka maanta Soomaaliya ku dhaqmayso mid qabiyo aan ma dhameystirno qabyadii waan isku raacnay in qabyadii lagu dhaqo wuxuu ogol yahay in la sraaco wuxuuna diiday in la raaco
waxa dhibaatadan wadana waa dadkan hadda kuu sheegahaya on kulahaa waa dadka waddanka horumar aan u jeedin maxaa jira dhibaatada waxay tahay ninkan waa la eriyay wuxuuna loo eriyay sababo qaramada midoobeed uu ka tirsanaana waxba kama qabin oo asagaba khaladkiisa uu ogaaday markuu qaramada midoobeed ka hadlahay wax dhib uu ka sheegay dawladda iyo Soomaaliya ma jirin amaan buu u sheegay marka khaladkiisa inuu qof turantaroon karaa marka mid waa aad khayri inay u yaraan la hadlaan ay dhahan kala tashadaan laakiin sharcigu wuu ogol yahay in isla marka on the spot ay tilaabo ka qaadaan la eriyo runta dawladdu waa dawladda aan haysano kaleeto dawladda aan sanna way leedahay dawlad goboleedyada waa governance marka Soomaaliya tii oo kala way marka governor inuu madaxweyne la tartamo ama ra'iisul wasaare uu la tartamo ka hor imaado la doodo sharci maaha maxaa governor waxa lagu ogay anaga hatta governayaasha way aadan dibadda waa waxay dawladda ogtahay waa waxay lagu raacsan yahay lagu ogol yahay laakiin waxa dhibaato in dawladdii laga hor imaado oo qayli laga hor keeno oo dhibaato laga hor keeno waa dhibaato aad iyo aad u xun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز waxaan salaam ummadda muslimiinta meel kasta joogaan dal iyo dibad gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Salaan kadib magacayga waa Ali Africa. Runtii waxaan rabaa inaan fikirkayga ka dhiibto arrinta ka jirta maalmaha u dambeysay ka cusbeed siyaasadda Soomaaliya. Taasoo ahayd baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay inuu nin ajnabi ah bangiga dhexe ee dalka uu madax ka noqon karo. Runtii taa nin kasta oo damiir leh ama ku jirto danta dalka iyo horumarka ka fikirayo waa arrin ugu farxo sababta waxa weeye dawladda uu horkaco Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waa laba nin oo dawladda meel fog ka soo qaadeen in badan dawladda Soomaaliya wax ka bedeleen waqti ay xilka hayeen waxaan ognahay waxyaalo badan oo isbedel ka dhac dalka waxa dhibaatada jirta Soomaaliya ka jirtana waxay tahay nin kasta oo siyaasi ah sidoo rag iyo reeb horan ka dhawaajeen markii xil laga qaado ama madaxweyne xilligiisa u dhamaado waqti dawladda la garab istaagi lahaa ama la taageer lahaa ninka maamulka la wareegay in mucaarad meesha laga bilaabo taana waa dhibaataan waxa ku tusaale dadka Soomaaliyeed inay wali u bislaanin siyaasadda taana loolama yaabayo dhowr iyo 20 sano ee dawladda burbursaneed oo dadka ay arkeen dawladnimo iyo kala dambeyn marka dadka hadda qaylinaha ee mucaaradsan sharci cusub hadda la ansixiyay waxaan u arkaa dad aan wali fahmin siyaasadda ninka hadii aqoon u leeyahay waxaan ognahay dalka Soomaaliya waa leeyahay nin aqoon leh laakiin intii maamul had soo maray maamulka hayo intii ku horeysay nin Soomaali baa madax ka ahaan jiray wax isbedel ilaa hadda lama hayo ninka saad intii wasiirka maaliyadda Dr. Bailey hadda xilka uu qabtay waxyaalo badan iska bedelay maamulkii marka hadda in lagu fiiriyo ajnabi ah sharciin loo ogolaado adduunka uu nala qaba waxa Soomaali kali ku kooban ma aha marka waxay tahay arrintan aad iyo aad u soo dhaweynaa cali ahaan waan arrin fikradeyda aad u wanaagsan taana waxa sabab ah xildhibaanada iyo dadka mas'uuliyiinta xilka saaran ee la doortay waxay ogyihiin in la xisaabtami adduun iyo aakhiraba labadaba ilaahay weynaa waaxid kaana uu arkaa xisaabna way jirtaa way ogyihiin marka wixii danta dalka ay ka naftooda waxaan filayaa inay ka shaqeynayaan marka ani cali ahaan fikirkeena sii badinin arrinta aad baan u taageersanahay waan soo dhaweynayaa